xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka ee Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiinta degmada Sheekh ayaa maanta si wada jira u dhagax dhigay dugsi waxbarasho oo laga hirgelin doono deegaanka Labiye oo hoos yimaada degmada Hudisa ee deegaanka Sheekh. waxaan halkaas ugu horreyn ka hadlay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka oo si weyn u soo dhaweeyay dugsiga waxbarasho oo deegaankaasi u baahnaa. waxaan soo dhaweynaynaa wafdida ballaaran ee heer gobor iyo heer degmaba. mar haddii iskuulkii u horeeyay noo dhagax dhigay timaadka wixii dambeena way noo daba socdaan. xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Sheekh iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmadaasi Ismaaciil Xabeeb oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in degmada Sheekh ay kaalin weyn ka qaadanayso dhismaha dugsigaasi iyadoo kaashanaysa dadka ku dhaqan deegaankaasi. insha Allah haddii alla ka dhigo waxa dambe ee soo kordhana waanu ugu dadaalayna haddaan golaha deegaanka nahay dhinac baanu ka wada taaganahay. waxa la doonayaa in la keeno ardaydii marka la arko meeshii wax ka socdaan oo waxa weeye meeshay buuxsanto ayaa dabeedna mashaariicda kalena daba socota idin waxa la idinka baahayay meesha inaydaan cidlayne soo camirtaan oo dadka yareey dadka waaweyniba gal hore gal wax lagu barto. waxaa loo mahad weyna inaanu ka soo qayb galno dhagax dhigga iskuulka waxaanaanu Labiye diyaar u nahay in wax kasto wax qabada oo xagga ka suurta gala oo aanu qaban karayno markaa hay'adaha aan awood u leenahay inaanu kala qayb qaadano dadka dadweynaha oo aanu hay'adaha tuulada horumarinteeda ka shaqeyno. waxaan jecelahay in halkan uga mahadnaqo gudoomiyaha degmada Sheekh iyo xildhibaanada runtii mas'uuliyadda weyn iska saaray sidii deegaanka Labiye dhammaan adeegyadii aasaasiga ah ee uu baahnaa uu heli lahaa haddii ay tahay dugsiga iyo haddii ay tahay adeegyada kale ee dadka deegaanku ay u baahan yihiin. waxay noo farxada in aynu dugsigii waliba labadii fasal ee ugu horeeyay maanta ay tuuladu yeelanaysay aynu dhagax dhigno. wuxuun baan insha Allah idin kala dardaarmayaa kolley waxa yar bay wax ku yimaada. waxa suuragala ninka boqolka geelali ee 60 ku dhalayeen haddii uu haruub qura haysto inuu haruubkaas ku wada maalo gabigoodaba waanu tolan intaas soo haruub. waxaan uga socdaa waxa weeye labada fasal hadeen maanta si waagno way koobayeen laakiin waa sidaynu uga faa'iideysanaa sidaynu ardaydeena u soo ururino ee bulshadeena u wacyi gelino ee aynu u buuxino inaga waajibaadkii leenaga rabay ka tuulahaan ayay waxyaabaha ku xigaalayna ugu imanayaan. waxaan leeyahay in ujeedadu waxay tahay dhagax iskuulka la idin dhagax dhigay maanta iyo noqonin meel ay xoolo u weydaan. waxa weeye dadka buurta deegaanka waa deegaan ballaaran ilaa inta ka sokaysa Hudisa ilaa inta ka sokaysa Labiyaha hoose. runtii waxa weeye waa in ardaydii qof la wada keeno oo qof waliba soo xilqaamo. waxaan halkan isugu nimid waxa weeyaan in Ilaahay nagu baarigno isku tashiga golaha deegaanka iyo dadka deegaankan oo maanta wada dhisanaya iskuul annagu wasaaradda waxbarasho ahaan waanu mahadnaqaynaa dadka deegaanka iyo golaha deegaanka iyo xildhibaanka isu tagay ee maanta hirgelinaya iskuulka ka kooban labada fasal ee xafiiska istoorka iyo suuliyada oo Ilaahay loogu mahadnaqa. tuulooyinkana waxaan leenahay tuuladii wax qabsata ayba kulli wax la qabtaa. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. wixii ay Labiye qabsadaan baa raandiisa wixii aynu isku tashano oo isku tashi ku yimaada ayaa raandiisa waxa ayna anfacaya insha Allah. iskuulka la dhisi doono insha Allah ta'ala maanta waa dhagax dhigi haddii Ilaahay ka dhigo bisha January 20keeda ayaa si toos ah loo bilaabaya haddii Ilaahay qadaro insha Allah ta'ala. tuulada tirada war waxaasaanu haysana wax ku dara waa tan u degdegno laakiin tuulada aan waxba la imanin ama aan waxba la soo bixin ama oran war kunka door baan haysanaa waxaan ugu qabto waxaan ugu dara waxba runtii annagoo eegayna waajibaadkayagii wax noqosay aan u degdegno yaanu la garab istaagno waxay u baahan yihiin laakiin tuulada aan noona iman imka runtii degmada iyadu tuulooyinka noo yimaada runtii nagu badan iyo tuulada aan nooba soo jeedin aan noo iman runtii horta waxaad iska daraysaa ninkan ku dul tagan hariya habeen. xildhibaan Cali Jaamac Caraale oo ka mid ah golaha baarlamaanka ee Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay dhismaha dugsigan isla markaana tilmaamay si degdega loo hirgelin doono. runtii deegaankanu waa deegaan ballaaran deegaanka Labiye taariikh weyn buu ku leeyahay Soomaaliland waa meeshii meelihii dalka laga xoreeyay meel ka mid ah oo wayna ognahay oo biyeley iyo nawaaxigeedaba waxa joogay cadow
waxa joogay qaxoontigii dadka sidii uu galayay waan ognahay halkan waxa ahayd meelihii laga kiciyay rejiimkii laga kiciyay ba kamid tahay marka taariikh ayay ku leedahay Soomaaliland sidoo kale waa deegaan ballaaran oo ah beeraley iyo xoolo dhaqato isugu jira deegaankaas wuxuu u baahan yahay in loo soo dhaweeyo baahiyaha asaasiga ah sida waxbarashadii caafimaadkii iyo wixii la halmaalaba runtii maanta waa inoo wada farxad inaynu yegleelayno iskuulkii ugu horeeyay ee tuuladan laga dhisayo marka laynii dhagax dhigay la dhiso iskuulkaas wuxuu wax ku noqonayaa sidaa u ilaashataan waxaanu naqaanaa dadkeennu maanta inay ku tiirsane u noqdeen hay'ado waxaan rajaynayaa inaad taa cindiga ka saartaan in halkan wax layni ku keeno inay cindiga ka saartaan in lacaga la sida layni ku keeno waxaa la rabaa inaad idinku beerihiinna iyo xoolihiinna aad bulshada kale u bardhigtaan inaad tihiin dad hodana oo qalbiga ka hodana oo maalka ka hodana waxa aynu meesha ka saaraynaa inaad ku sugtaan waxayda laga keenay taa meesha waynu ka saaraynaa innagaa isku tiirsanaanayna innagaana wax soo saarka dalka qayb ka noqonayna haddii la yidhaahdo deegaanka Labiila ayaa waxa uu ka mid ahaa deegaanada aan dugsiyada waxbarashada lahayn balse dugsigan waxa iska kaashan doona dadka deegaanka iyo sidoo kale degmada Sheekh Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera